dadka maanta wada duqsaar lagu dadka degan dadka Scotland ayaa ka qayb madaxweynaha wadanka Mareykanka waxay soo askar gorgareen alla bariya kan jacayl daba barashada lama kala garanayo cadaan iyo xidhnaa هيا الكذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داودياشا إذا قيمة يقدرين تنقم دون كسر دواده الله حتقصيني توي كجاه الليين دجال كواحدة داعش ما جامعة عرب تايا شير مدوي تقصي اسمه موضع xiritaankan ku yar noqdaa xiritaankan ku yar noqonaya iga raali noqo intaas waxay nagu dhamaaday guud ahaan ba wixii dalka gudihiisa iyo dibadda aan idin soo tabinaynay waxaan jacaylkuna waa tabayn rogragato bariinu ku soo rido rayda waxkale karaan naga bilowni caadiye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جودهم بأخيار تيدا كلا قد سنة وانا قام دوري أخيار تيدا كلا قد سنة طبعا هو ذا نقل سعوتها يدي لهانتي طبعا انت تيدي كساف ميرنا واربحي تلك قدي سادة على هذا الدنيا ذا يقاردا كلا قد سنة بنقصو قاري ومتى نقل كلا سعوتها استوديو تلفزيون كما ده حبناني بشتي في كل جودة عاصمة مقالة هرقيسة دودي لوركنا واحد لسه حسين يواني وأنا جيب عبد الله علاده يجودها بهول وذينا برشتي فويد كنا فيا سيدا يا السلام عليكم ورحمة الله من الله تعالى وبركاته هنطولنا أي نغا مسيدة تحقق ما حيز ولا لك الله ولا لك على هرتك علي الله أبغاك كم غدا ندري أبغاك كم كذبي اللهم صل على محمد كل فات بسم الله عبد الرزاق هيا خسارة isugu jira naf iyo maal ayaa ka dhashay dooxa huluuq oo qaaday laba gaadhi oo kala ah nooca loo yaqaan raaxada iyo xamuulka raaxada iyo xamuulka marka la laado waxa la moodaya isku dhagsan ma gabadhida raaxada iyo xamuulka raaxada taqaan hada nooca karida karamta xasan xamuulka ma taqaan gabadhida taqaan ay خسارة isugu jira naf iyo maal ayaa ka dhashay dooxa huluuq oo qaaday laba gaadhi oo astaghfirullah nima naga deesid kaamar baan niriye huluuq qaasi waxaas balayd aan ka fikirnaa waxay kulanti wacan oo wanaagsan dhamaan ba khiyaarta hawada naga daawanaysa ay kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo adduunweynaha idinka haynay habeenkan caawa oo aad ka daawanaysaan Bulsha TV taqsiq maalin waxaan daawaynay xaladaadka baalka TV-ga qaranka waa raaxay taqsiqde taqsiqana lagu saliday
الله عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن هل كانوا تلفزيون كم حبرنان بولشة تي في حارنتي سكوات مقالة هرجيسة وأنا هذا هايو كلا يدين كسوت بنوحي وردلك جوديه سئية دبد حبتها تقصيها الدلبة أنكر نقطة wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday in ay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhiiglihii geystay dhagartii lagu khaarijiyay taliyihii degmada Xaaji Saalax ee gobolka Daadmareed wasiirka gudaha nagaam warkii baan ku jirnaa raafayar baalka maraysa nagaam dhigtay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday maantaas naga reeb ra'iisul wasaaraha dalka Yunlak Shirawatra war magaca Shirawatra Yunlak Shirawatra bal magaca ya gudoomiyaasha golaha guurtida baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta gudoomiyaasha labada gole baarlamaan oo maalmihii ugu dambeeyay khilaaf in ka tag wardanaga jooji sheekadan xamaasadda ka sheekaysan shit sidaad u qortan ma akhriyayna shiraad samuuqa ma akhriya wanta saasa ka qorqana la ilaa oo maalmihii ugu dambeeyay khilaaf ka dhex taagan war maxaa khilaafkooda aniga saar السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شباب سعد يا هيرتو أنت وحش علانك dalkaasi bri madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Barack Hussein Obama ayaa waxa uu guddoonsiyay 16 qof oo ku dhashay wafdi ballaadhan uu hogaaminayo safiirka wadankaasi wafdi ballaadhan uu hogaaminayo safiirka dalka Turkiga u fadhiya magaalada Muqdisho caasimadda dalka magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya oo maanta soo gaadhay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in safarkiisan uu ku qotomo boos kale buug dhawaan lagu soo bandhigay jaamacadaha Camuud iyo Hargeysa ayaa noqday mid bulshada si weyn buug dhawaan lagu soo bandhigay jaamacadaha Camuud iyo Hargeysa ayaa noqday buug si weyn bulshada u dhex qaada hadal hayskiisuna uu batay xukuumadda wadada wararka kale aan habeenkan caawa daawadayaal idin haynana waxa kamid ah akhyaarteeda qiimaha qaayaha iyo qadarinta naga mudan hawada nagala socdow halkan ayaa waxa ku dhintay qarax ballaadhan oo ka dhacay wadanka Afghanistan ayaa waxa ku dhintay madaxii hay'adda lacagta adduunka ee IMF ee wadankaasi kuwaasi daawadayaal
kuwaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon iminkana waxa u diyaar garowdaan qodobadaasi oo faahfaahsan antaasi kaga soo laabto waxa kale oo inoogu xigsiinayaa daawadayaal caweysankeenan caawo ah xubin iyadana uu soo dalbaday waa hees uu soo dalbaday caawo ma wiilashay badan baan idhaahdaa waxa la yiraahdaa Maxamed Ismaaciil buu igu yiri ayaa la yiraahdaa heestan ayaan ka dalbanayaa ii soo daa waxaan leenahay hees asal soo dalbatay waan ku ciyaarnaa insha Allah waan ku sii deynaa heesta